Waa in salaam asxaabta sheekadayni maanta waxay ku saabsan tahay labadan gabdhood oo ahay laba gabdhood oo walaala ah. Mid waxay ahayd mid fiican oo aabaheeda shaqada kala shaqeysa oo gabar wanaagsan ayay ahayd, halka midda kale ay ahayd mid iska wareegta oo iyada dhib badan oo iyadana isku mashquulsan. Aabahooda mar ayuu baxay uuna macsalaamiyey. Midna waxay ahayd mid fiican oo aabaheeda ka murugtay markuu baxay, halka midda kale ay ahayd mid aan korka iska saarin oo ahayd gabar iska dhiidhiil badan. Midii fiicneed markuu aabaheeda baxay dukaanka ayay la wareegtay oo waxay bilowday inay u iibiso wixii aabaheeda iibin jiray. Hawsha gurigana ayada qaban jirtay. Waxay ahayd gabar aad iyo aad u wanaagsan, cuntada xataa ayada karin jirtay. Gabadhaasna waxay ugu dari jirtay inay dhibtaa nafta u keenta oo waxay habayso dhan waa ay ka haleyn jirtay. Gabadhaas waxay ahayd gabar dhibta gabadhaas nafta u keenta oo waxay samaysa dhan kaga dheesha. Oo gabadhaasna waxay ahayd mid markay ay ku aragtay meeshii hagaajisay in la haleeyay ku dhahday ilaahay adiga ma haleysay. Markaas ay ku dhahday aniga waxa leeyahay ma u eka wayna yeesi jirtay gabadhaas lama hadli jirin. Maalin ayada banaanka u soo baxday iyo waxay aragtay islaan waayeel ah oo meesha taalo oo xanuunsanaysana waa inay soo qaaday. Markii xaafadda keentay ay ku dhahday maxaa noogu keentay islaantan wayna ka aamustay waxayna bilowday inay daawo u samayso. Gabadhii daawo ayay u samaysay, daawadii wax lagu darayay ayaa wax ka dhinna waa ina doontay. Midii kalena waa ay ka daadisay markay aragtay ay daawadeedii inay maqan tahay waxay ku dhahday adiga ma qaada daawada igu soo nab ayay ku dhahday wax walba oo aniga aan sameynin. Maalmihii sidii ayuu u socday. Islaantiina waxay noqotay islaan caafimaad qabta oo socon karta waa ayna ka tagtay. Gabadhiina waa ay xanuunsato waxay noqotay mid aan kici karin, halka midda kale ay ka mashquulsanayd gabadhaas oo na fiirin jirin. Waxaa imaaday islaantii oo markii ay maqashay gabadhaas xanuunsan waa ay u imaaday, laakiin ma aysan ahayn islaan wax isku bedeshay boqorad. Midii kalena way arkaysay markay u imaaday ayay ku dhahday ma adiga waa ama ku raadin jiray waxaan rabaa inaad iga dhigtid timahayga dahab ah. Timo dahab ayaan rabaa mudana waa raadin jiray. Gabadhii maysan ka diidin waa ay ku aadisay ushii timaheeda waxay ugu bedeshay timo caws ah oo aad iyo aad u taagan oo dheeraanaya. Markii ay aragtay timaheeda sida u noqday gabadhii waa ay qaylisay waa in la yaabto waa ina ka soo carartay. Markaas ay waxay imaaday webi meesha ka dhawaay waa isku fiirisay timaheeda sida ay noqday markii aragtay waa ay la yaabtay oo waxay noqonayeen timo mar walba sii dheeraanaya oo dhulka ay ka galeen waa ina ka soo gadoomi weysay meeshii. Markaas ay qaladkeeda qiratay waa ayna ooysay. Gabadhii kalena waa ay soo fiicnaatay xoogaa oo waxay noqotay mid hadli karta. Markii ay soo kacday ay u mahadcelisay waxayna ku dhahday gabadha walaashay gabar yar waa qaladkeeda mar ay ogaan doontaa iskaga cafi waa ku baryaa timaheedana sideeda ugu dhig qaladkeedana ayada ay ogaan doonto. Markaas ayay u imaadeen oo gabadhiina waa ay timaheeda ayaa la soo celiyay. Markii dambe ay waxay habsiisay walaasheeda oo ka codsatay in ay cafisa. Gabadhii walaasheedana waa ay cafisay, halkiina maalintii waxay ku noqotay gabar aad iyo aad u fiican oo walaasheedana caawisa dadkana si fiican ula hadasha oo waxa ay la iibin jirtay oo si fiican gabar fiican ayay noqotay. Sheekadeenina maanta intaas ayay ku eg tahay.